madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxa uu ka qayb galay munaasabad Machadka Sidra oo ku soo bandhigayay cilmi baaris uu ku sameeyay doorashada Soomaaliya ee 2016 sida warbixinta warkaan magaalada Garowe inooga soo diray wariyaheena Cabdirashiid Bashiir Maxamuud. munaasabadan uu Machadka horumarinta cilmi baarista iyo faaqidaada siyaasadda ee Sidra ku soo bandhigayay cilmi baarista uu ka sameeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wasiiro ismo culimaadudiin iyo qaybaha bulshada rayidka ah. cilmi baaristan oo Machadku ka sameeyay 5 kamid ah magaalooyinka Soomaaliya ayaa waxa diiradda lagu saarayay nooca doorasho ee dalka ka dhici karta sanadka 2016 iyo waxyaabaha sababa khilaafka madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo soo laalaabtay. agaasimaha Machadka Sidra Guuleed Saalax Bare ayaa ugu horeyntii ka hadlay ujeedka cilmi baaristan oo tilmaamay inay ahayd mid laga maarmaan ah wuxuuna dadka masiirka dalka gacanta ku haya ku booriyay inay wax walba maslaxad ku dhameeyaan una daneeyaan dalka iyo dadka. magaalada Baydhabo, magaalada Kismaayo, magaalada Muqdisho, magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Garowe waxaan xog ururinta ku wareysanay ilaa 290 qof oo shanta magaalo kala socda oo kala metelaya qaybaha bulshada sida aqoon-yahanada, siyaasiyiin madax bannaan, culimaadudiinka, ururada bulshada, xubnaha ka socda maamulada deegaanada ka dhisan intaba dadkii aan wareysanay oo Soomaaliyeed ee ku kala noolaa magaalooyinkaas waxyaalo badan oo isku raacsanaayeen waxyaalo badan oo kala fikir duwanaayeen waxyaalo kale oo kala duwanaayeen waxyaalaha ay isku raacsanaayeen waxa kamid ah intooda badan 91% inay aaminsan yihiin doorasho hal qof hal cod inaysan dhici karin oo intooda badan 93% dadka la wareystay waxay sheegeen doorasho aan ahayn hal qof hal cod hadii suurtagal weyn in qaab kale loo maro laakiin inay dhacdo doorasho 2016 dadka 80% wax ku dhow waxay qabeen hanaankii loo maray ama qaabkii loo maray doorashada ama xulista xubnaha baarlamaanka 2012 si ka duwan inay rabaan sidii in hadda 2016 la sameeyo oo aan ahayn in sidii hore lagu laabto taasoo ahayd kaliya in oday dhaqameedku uu soo xulayay xubnaha baarlamaanka ah wax aad ugu kala duwanaa maxaa hal noqon karaya see qaab noocyo kala qaabka ugu fiican ay noqonaysaa waxa la isku khilaafsan yahay kaliya waxa weeye qaabka ay doorasho ku dhici karayso qaabka loo gooriyay qaabkii hore qaabka ay noqonayso taana waxaan ku tala bixinaynaa in dadka siyaasiyiinta ama madaxda maanta hadda yaani xilka haya ay bisaylka muujiyaan ay u turaan dadka shacabka ah ay meel dhexe la iskugu yimaado oo cidna maanta aan goonin loo saarin banaanka aan loo tuurin in hal dhexe oo si is-afgarada iyo isqancin ku salaysan arintan loo gudbo. madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey oo mahad celiyay Machadka Sidra ayaa sheegay in nidaamkii 4.5 uusan ahayn wax sharci ah laakiin uu ahaa mid duruufi keentay wuxuuna ballan qaaday in dawladda Puntland ay garab taagan tahay shacabkeeda. ninba wuxuu qaadanayaa yani qayb aan u lahayn buu qaadanaya ninna waa laga qaadaya cadaaladda iyo diintuna kuma jirta sida waxa loo baahan yahay wax daba ummadda Soomaaliyeedna ay ku wada qanacsan tahay dawlad sharciyo oo Soomaaliyeed oo dadka u dhaxana dalka u dhaxana in la helo maanta aynu joogno waxaan waxa ka go'an kullayba Puntland bal in la helo dawlad sharciya oo dadku leeyahay oo dadka u dhaxa oo magac iyo karaamo iyo cizi ku fadhida meeshaas mar walbana anagu waa u taaganahay reer Puntlandna waa u taagan yihiin bal wixii ummaddu ay isla ogoshahay Puntland marnaba kama xumaan doonto mana diidi doonto iyadoo oo shacabka reer Puntland waxay ay aqoon dawladda Puntlandna ay ku gowracan tahay marnaba aanay dhici doonin inaan wax shacabku rabo wax ka gadisan inaanu keeno insha Allah ma dhici doonto sidaan maalinkii horeba uga ballan qaadnay inaanu iskiin garab taagi doono waxaan ogahay 4.5 ka inaydaan ogolayn ee dawladuna ma ogola hadalkayga waxaan ku soo koobayaa waan mahad celinayaa Sidra cuseebkeeda iyo waxay qabatay isma laha waa cilmi baarista ugu horeysay ee natiijadeeda uu soo bandhigo Machadka horumarinta cilmi baarista iyo faaqidaada siyaasadda ee Sidra oo dhawaan laga daahfuray deegaamada Puntland. Cabdirashiid Bashiir Maxamuud, SBC, Garowe.